libaaxyadii geeska Afrika. وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي قبيل كديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي بدن مدى دونالي كان ديدي هوشاري كان لعبكو دورسانو وحكاستا ودقاتو وديب جيري دحدي سالي يا قونتو ردكو كأفلحانو دابع تعليم تاريخ دلقا إيا بيرا كيام بلو تاكو دقالها تركنا يالي دقالا تركنا يالي يا قونتو ردكو كأفلحانو دابع تعليم تاريخ دلقا إيا بيرا كيام بلو تاكو دقالها تركنا يالي دقالا تركنا يالي يا عذركو دبرجو يا عذركاني دنيتا وديقا لا به يا ماتلا إيمانكي صدقالي عافمات دون داوي يا عذركو دبرجو يا عذركاني دنيتا وديقا لا به يا ماتلا إيمانكي صدقالي وسؤال داويني دلك يا إسكالي وسؤال داويني دلك يا إسكالي النبدا دوني عن ضايع الندامك دولة لمدى تعبالي بديو ذهبا تنشرها أمي كنين دقنانتا وقلين بالي وقرين بالي دقنانتا وقلين بالي النبدا دوني عن ضايع الندامك دولة لمدى تعبالي بديو
gudahaba danjiraha umiganu degnaanta ogolayn baale ogolayn baale degnaanta ogolayn baale dintiyo shareecada dulmigii ka dhowre dadweynaha u fidiyaale doodagii wax garado ilka degta loo suray dabacsani udiidaale dabacsani udiidaale dintiyo shareecada dulmigii ka dhowre dadweynaha u fidiyaale doodagii wax garado ilka degta loo suray dabacsani udiidaale dabacsani udiidaale dabacsani udiidaale dabacsani udiidaale dabacsani udiidaale بسم الله الرحمن الرحيم waxaa jiro waayadan howlgallo aad markan u ballaaran oo lagu sifeynayay kooxdan qawaariirta ah oo geedaha hoostooda ku dhuumaalaystaan baa jiray marka ururka taliska markan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12 Abriil ururka 31aad wuxuu qaabilsan yahay inta u dhaxayso balcad iyo afgooye mar walba baagsi aan joogsi lahayn baan markan cadowga meelaha ay galaan baan ugu daba tagaynay waxaana ka sifeynay webiga beeraha webiga saaran iyo meelihii ay ku dhuumaalaysan jireen oo habeenkii markan inta soo arursadaan markan ay carqaladeen ay ku sameey jireen shacabka beeraleyda ayagoo mar walba markan baad ka qaado jiray sakawaad aan waxba ka jirin oo burcadnimaha markan ayaga mar walba ay baad u qaado jireen alxamdulillah markan waxa ahayd shacabka oo beeraleyda oo u dhaxeeya markan balcad iyo afgooy inta ka dhaxeyso aad bay markan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliska lugta qaybta 12 Abriil waxay noogu hambalyeeyeen sida aan ugu hortagnay cadowga oo qawaariirta oo markan oo mar walba markan waxa ahayd aan shacab iyo ciidanba ay isugu mid yihiin haween iyo caruurna ay isugu mid yihiin ay rabaan markan waxay ahayd inay dhinac ka maraan ay qarxiyaan marka waxaa kaloo markan jiro nidaam baan u sameynay gaadiidkii ka soo dhaxbaxayay beeraha gudahooda waxaan u sameynay inay damaanad yeeshaan ayagana markan la nabad gelsho cadowgana aysan ku soo hoos dhuumanin marka alxamdulillah shacabka aad markan beeraleyda ay noola shaqeeyeen haddana waad arkaysaan sida markan waxay ahayd hawsha ay u socoto meel walba markan waxay ahayd in webiga jiinkiisa dambe xoogaa hadda aan lagu sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliska ciidanka xoogga qaybta 12 Abriil meel walba ay galaan waan ugu daba tagi doonaa hadduu alla yiraahdo waxaan ognahay inay suuli doonaan waqti dhow waxaan ognahay markan inay tiradooda ay mar walba ay sii laciifayaan shacabkana markan ay dareemeen inay manaxyaal yihiin ay waxyaabaha aan habboonayn mar walba ay ku kacaan dhiigga shacabkana ay banaysanayaan oo wax kaliya ay banaysanayaan aysan ahayn dawladda aysan ahayn oo ciidanka aysan ahayn shacabka naftigoodana ay aad u beegsanayaan shacabkana waa arkeen haddana shacabka aad markan noola shaqeeyaan alxamdulillah howlgalkeena markan mar walbana musaan iyo si lamida iyo si ka daran baan ugu beegsan doonaa hadduu alla yiraahdo kooxdan qawaariirta oo shabaab marka saasana markan aan u wada shaqeynaa taliya markii ay sii kordheen howlgallada aad ka sameynaysaan deegaanada haddii aad inoo tilmaanto maxaad leedahay isbeddel oo ay ka dhasheen howlgallada ciidanku ay sameynayeen muddooyinkan ugu dambeeyey qaarkood deegaanka beeraleyda qaar baa qoryo inta gateen ay ku kaceen cadowga markay arkeen mar walbaba baadda ay weydiisanayaan ayagana markano waxa waaye mar walbaba waxay ay noogala shaqeeyaan hadday warbixin ahaa lahayd
haddii ay ahaa lahayd la dagaalanka al-shabaab aad bay markan waxay ahayd ay nooga saacidaan waana nagu faraxsan yihiin deegaanka ka soo jeedo beeraleydan waxaa waaye tuulooyin badan waaye tuulooyinkan waxaa ka mid a waa dhowr tuulo inta annaga aan ka xoreynay cadowgan al-shabaab